dadka yaga anagoo jecel anagoo u turayna anagoo u ogolayna waxyeel la gaadho haddana amaanku inuu faraha ka baxo ma aqbalayno xeerka lagu qabanayo saylac ee labada saacadood ee ciyaarta galaya maxaa boorame loogu gubaya maxaa yaala boorame waa caasimadii gobolka waa caasimadii quruxda waa caasimadii nabadda waa caasimadii Somaliland ka soo aasaasantay dadweynaha sharafta leh ee reer boorame waxaanu leenahay waxa diidaysaan si salmiya iyo mudaharaad salmiya waa ku diidi kartaan cid idin diidi kartaa ma jirto dastuurka idin ogol laakiin fawdo lama ogolaanayo dalku fawdo ma gelayo maanta ay taariikhdu tahay 5 bisha 12aad 2025 oo maalin jimca waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo xaaladda ka taagan gobolka Awdal gaar ahaan magaalada madaxda boorame dadweynaha kacsan ee ilaa xalayto ku mudaharaadaya boorame waxaan leeyahay isdejiya oo xaaladda dejiya oo magaaladeena haynaga gubina oo magaaladeena ha gubina shaarici magaalada boorame ee quruxda badnaa weeyaan waxa dabka ku sulaysaan ee dabka u quudheen dadku wax buu diidi karaa wuu mudaharaadi karaa laakiin hantida la gubo maaha hantidii dawladda la gubaya ee umadu lahayd hantidii gaarka loo lahaa baa la gubaya waxba looma aaba yeelayo ciidamada ammaanku arrintaa u dul qaadan maayaan ammaanka gacantaanu ku qabanayna cidnaba ka yeeli mayna amaan darro dadka yaga anagoo jecel anagoo u turayna anagoo u ogolayna waxyeel la gaadho haddana ammaanku inuu faraha ka baxo ma aqbalayno ciidamada ammaanka gacan bira bay ku qabanayaan gacantay ku haynayaan cidnaba uga dul qaadan mayno waxa muuqata in dadyo dana gaar leh ay ku dhex dhuumanayaan dadka oo gubaya oo dab sudaya calankii qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku qoray kama yeelayno waxa ku dhex jira dad boobaya hantidii ummadda oo burburinaya oo aan maxay ahayd turaynin oo baankii hantida ummaddu taalay boobay oo maxay ahayd dab ku shidaya kama yeelayno waa bank robbery waa burca doonaysa inay hantida ummadda boobto ciidanka booliiska iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland dhamaantood uma dul qaadanayaan arrinta dadweynaha